soo 8 saac soo kacay moogtahay Haye. soo jag markuu soo siitay waryaare dadba ma ogeena waa maxay geedka caawa ay jogeeda betrooda lido loo qostay oo firish ku jira loo seexin habeenkii dambe iska seexan ninkii uu dhacay dad oo iska dhacay yuwaagu bariyay waa soo dhacay nacaasho naxal waxa ku dhacay maxaa sidii aad ma soo gacantada labada bakhayl rukuucay alaabtiisii waa gadaal laga arkay ha iyadoo lalmato sida sax koor geelka kale markaasa mid gadaal ku tukanayay yaa wuxuu damcay marka maya wuxuu damcay inuu macuusta hoos ugu soo jiido arbuintii qabtay soo jiido moogta asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu asxaabta dhammaan meel walba dunida ka joogtaan waa idin salaanay anagoo isku duuban waa barta youtube-kan ku leeyahay ee hanad gaashaan caawa waxaa barnaamijka marti ku ah saaxiib ugu qaali ah barnaamijka caawa barnaamijyada wuu ka xiisa badan yahay sida aragtaan waxaa marti ah igu ah wariyaha weyn ee soomaaliyeed cimraan iyo cawke soo dhawaada saaxiibayaal ahanad waa mahadsan tahay sida aad caawan noo casuuntay aan janaalkaa marti u nanay ani ahaanteeda kolley muddo badan baan rabay inaan mar janaalkaa aan soo hor fadhiisto oon isla qabana muuqaal yar oo shidan waana ku mahad celinayaa asxaabta janaalkaa ku xiranna iyagana khaasaan baan ugu mahad celinayaa waa saa idiin sheegnay waa hanad gaashaan ha kala bakhaylna subscribe iyo gambaleelka like iyo share iyo comment waayo haddii gacantu yar mashquulsan tahay carabka waxaan ka codsanaa saa kale siiday carabka haddii carabka laga inuu yar mashquulsan yahayna suxula maartay saa ku dhaha asxaabta saa idiin sheegay waxaan ku wareejinayaa cimraan wariye cimraan aad baad u mahadsantihiin marka hore saaxiibadaygu qaaliga ah ee dhinacayga bidix fadhiyo oo ugu horeyntii aad u mahadsan tahay ninka aan maanta u casuumanahay waa hanad gaashaan dhammaan asxaabtana daawanaysa haddana eegayso idinkuna waan idin salaamaynaa annagoo isku dhan marka hore waad ku mahadsan tahay sida wacaneed barnaamijkaaga noogu casuumtay thank you sharaf iyo karaamo iyo cizi baad naga mudan tahay thank you caawa barnaamijka aan idin wadno aad u xiisa badan waxaa noo daadihinaya cawke soo dhow hadee janaalkaan ku casuuman haddana ma usha ii dhiibtay walahi waa iska qaadanaya iska sareeya asxaabta meel kastoo joogtaan waa idin salaanay mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afaraad iyo mar kumaadba waa saaxiibka hanad gaashaan iyo saaxiibka marna wariyaha qaaliga ah cimraan wuxuu dhadee marti baan u ahay haddana wuxuu usha ku dhiibaan barnaamij ku casuumay waa saa idiin sheega ha kala bakhaylina subscribe-ka lacagma waa bilash meesha yarta maarata oo casanka maarata ama reerka ah saa u tuujay fartaa ku dheh ka dambana gambeelka yarka dhaw ka sii kor meesha oolka qoranta si taawo noqo hanad gaashaan janaalkiisa wax kasta oo lasoo dhigo qofka daawadihii koowaad commentina nagu celina ogoka si wanaagsan share qararafta ugu dara share like gaashaan barnaamijka waxaa tiraad aada dahinaysa aniga casuuntay anaadan ku casuumanahay sax su-aashida koowaad waxaa waaye hanad gaashaan waa nin fanaan ah oo la yaqaano sax xagga social mediaga magac waad ku leedahay sax intan hadda 3 sano lasoo dhaafiyena heesaha aad loo dhegeystaa ama aroos ha noqdaan ama jacayl ha noqdaan sax gabdho badan waxay leeyihiin oo igala soo hadla facebooka sax gaashaan waa halka fanaan keliya oo hees daadis qaadin sax marka gabdhaha waxaan ka ku taageersan yihiin ma aqaanid daadiskaad ka diisay hanad ma la dhihi karaa muusiga iyo codkiisa markay saaran yihiin waa cod yacni software soo maray ee hanad codkiisoo qalalan buu qac ka yarsiin karaa fikrad wanaagsan horta fanaanku hibadiisa ama codkiisa ilaahay sii horta lama qarin karo sax waxaad iga codsatana dee caawan fulinaya amarka dee wadulaya laadee fulinaya si walba wax u rabto waan gartay marka asxaabta waxaan u sheegaynaa wax walba inaan ka raaligelin doono wixii sida macquulka insha allah haddii alla idin waxaan soo qabanayaa ama usoo qabanayaa hees la yiraahdo calmadow heesta eryadeeda waxaa sameeyey jaamac ducaale laxankan ustaad cali shaacir muusikana xasan xujeeri cajabi codkana waa aniga heesta waxay ku bilaamaysay sida caw miroodo calmadow dusheediyo cirifkeeda merto
ku caway safiidkii cumashada libaaxuna calafkiisa dhafsho caro dhabata orodko aan cidi uba gaarayn waxaan caadil kuu qorin cugdalooma qaade hoy waxaan caadil kuu qorin cugdalooma qaade adigoon caalan calin oga oraa tataatirariran oga oraa mid kale. aad iyo aad buu u mahadsan yahay hanad gaashaan kolley dee asxaabta meelka soo joogta waa aragteen codkiisa caawa maadaama in badan aan dhahan fariintii noo gudbi laakiin fariintan caawa waan gudbiyey waka hanad gaashaan waa anigii saaxiibkii qaaliga Cimraan marna weli Soomaaliyeed oo saaxiibi ah iyo fanaankii weynaa ee Saqadin hanad gaashaan asxaabta kun jeer baa idiin sheeganaya 100 jeer iyo 200 wax ka badanba hanagala bakhiilna subscribe ka dambana gambaleelka iyo like iyo share comment si aad u noqoto hanad gaashaan qof wax kasta uu soo geliyo muuqaal qofka kuwa uu noqonay daawadaha midda kale caawa qof kasta nasiib uu leeyahay barnaamijyada hore waxaan idin qaban jiray uu ka duwan yahay Cimraan si wanaagsan wariyaa tahay meelo badan baad war ka tibisi ama TV ha noqoto idaacad ha noqoto sax maxaa kula yaabadnaa ani horta adduunkan la yaabkiisa fara badan qof walba si wax u soo maraan sax waxyaabo fara badan oo la yaab ah oo ay soo maray way jiraan waan gartay kale in la xasuusto iyo inaan xasuusanin ba intuba way isugu jiraan sax marka maxaad u baahan tahay rabtaa inaan ka hadlo waxaa rabtaa inaan ka hadasho ma jirtaa qiso ama aad maqashay ama adiga kuu dhacday ama lagaaga sheekay ma jirtaa oo yacnaa iska badan Nairobi dhibka haystay gabdhaha si wanaagsan haye horta gabdhaha iyo dhalinyarada iskaabulada dhib weyn hadda hal baa idiin sheegi rabaa xaqiiqda ka hadlayna caawiya caawa waxba lama qaranayo si wacan oola socda gabdhaha Nairobi iyo wiilasha Nairobi iskaabulada dhibka isku haysta mid kaste wuxuu ka shaqeeyaa M-Pesa ama maqaayad 15 kun ku shaqeeya lacag $150 ah gabadhii sidee lagu guursan wiilkii sidee ku guursan gabadhii waxay tiraahday meherkii kilo $4,000 guriga waxay tiraahday 1 milyan marka dhibkaas caawa ka hadli rabnaa si wanaagsan cawka horta dhibaatooyin fara badan baa dhalinyaradii ragga ahayd iyo gabdhihii kala haysto sax waxaad arkaysaa nin dhalinyaro ah oo iska xamaalanayo hotel baa inuu ka shaqeeyo sax subaxii buu soo kacayaa hotelkaasuu soo gelayaa laga yaaba adii gelinka dambe inuu ka baxo sax hotelka saacado badan buu ka shaqeynayaa sax uu ka soo baxaya waxaa laga yaabaa marka wixii uu qaadanayo hotelka uu ka qaadanayay inay tahayba 15 kun inta badanba sax haddaysan ka yarayn gabdhihiina way ku tashanayaan saaxiibka uu soo labisanaya magaalada soo gelayaa tiyaro qurux badan buu arkayaa tiibuu markaa isku dhajinayaa number dhac lambarka waa la qaatay qarar bay lambarka si wanaagsan ah xaafadda la tagayaa sheeko yaro macaan dhacdhac habeenka ku xiga waa chicken iyo chips haddaada keenin hadal ma jiro telefoonka in lagugu jaro in lagugu dhegeysta noqoni haddii kale waa inaad keento chicken iyo chips marka inankii waxaa laga yaabaa marka inta badan maaragtay waxay u qaataan daily bay u qaataan dhalinyarada maqaaxyaha ka shaqeeya marka daily marka lana waa 500 500 buu soo qaatay 500 markuu soo qaatay saaxiibtaan way sugaysaa waxay leedahay chicken iyo chips caawa haddii kaleeto hadal ma jiro iska daa kulan habeenka jimcaha ka tegin biisa habeenka jimcada iyadu oo 900 biisa waa tii fududeyda horta waa inaad suuqa waa inaad kaxayso outing geyso kow gaarigiiba wuxuu kaa qaadanayaa 2,000 marka ugu yartahay sax samada garan biisiyo 900 BC cabitaanka ka sii daran galaaskii biyo waxa la meesha aad tagteen in 600 la gadayo sax waa vanilla adi gabadh kale cabti waa vanilla kala ma jiro ba vanilla iyo matiin wala isdaan awa milk shake meeqa la gadaya kushii marka ugu yartahay saaxiibka marka 500 buu wataa sax wuu la soo tagay sanantii way sugaysaa guriga joogtaa waxay tiri haddaad caaw keeni weydo hadal ma jiro kulan iska daa kulan lisma gaarin waa hadalkii saaxiibkan islaantu waa aad buu dharaar ooga daadanayaa si fiican buu ugu baahan yahay wuxuu sameeyo garan waaya marka 500 marka waxay noqonaysaa inuu chips iyo chicken ka soo gado sax chips iyo chicken marka 200 iyo 200 dheh
iyo 100 container afar boqol 400 sooma Sax. cabitaankii baa lagu sugayaa kaarkiina asagana meel dhig 500 horta habeenkii baabaada waxaa laga yaabaa inuusan cashayn asagii soo hadda ma shaqo cusub la soo baahaysa markuu geeyo ninka mugta oo iska cabsiinayaa may haddaan soo cashay calooshan waxaa laga yaabaa marka Inay inay faraha- shirraqle ay dhawaaqayso bal dhibka dhageysta marka iyada haddii galeeysa uu cuni saa'id Sax. marka isaguna cuntadii uu wadaa uuna ka baahan yahay calooshiisa waxaa ka yeeri haddaad aragto waad yaabi wallahi been ma idin sheegay gabdhaha aakhiradu mina sajiyeen saa'id marka 500 gabdhaha qaatay 500 ka baasay gacan ka cunay gilay iyadana chicken ay cunaysa iyo alu bilaah marka gabadhii iyadoo gurigooda iska jiifto iska naaxayso waxaa laga yaabaa inay casho haysato laakiin intaa ay xujo kaga dhigaysa asaga Sax. marka hadduu keeni waayona teleefon lama hadlayo dhalinyaradii gabdhihii iyo wiilashii dhibkaas baa kala haysto dhibaatada ugu weynna waa gabdhaha ma dhihi karnaa hal su-aalo kale ma dhihi karnaa cimraan gabar baa intay jeclaatay iyo hotel u biir u saarnaa yaa si cunto ka cuniyey iyo gabadhii heer markii dambe markii hawsheeda la ogaaday iyo gabadhii hotelka tagto oo shaqada laga caydhiyey Cimraan waa la dhihi karaa arrinta. Way jirtaa haddaan xaqiijino. Dadka guryaha way ku badan yihiin sanadkan. ma dhihi karno waa kasi jirta ma dhihi karno ma dhihi karno Ay, u baday dhanka dacayada niyow maalin baa waxaa dhacday Cawko, arrin baan kusoo xasuustay inaan saaxiibanahay Sax. yaa gabar wuxuu shukaansanayay maqaaxi ka shaqayso Sax. marka gabadhu waa garoob Sax. 2 cunug bay Asxaab si wacan noola socda dee. Sheekadu way xiiso badan tahay. laba cunug bay marka ayay gabadhu leedahay Sax. marka gabadhuna maqaaxi bay ka shaqaysa cimraantii ku dhacday ka leexdeen tukun loo saaray hay soo Waa golahay. Soomaali waxay tiri asxaabta Sax. nin weyn isku furta asaga garani Sax. maadaama xujo lay saaray Sax. waa inaan maart dhanka dacayada anigan iska leexiyo sheekadan waxay ku dhacday inaan saaxiiban nahay laga yaabo garabkay inuusan ka fogeyn anu waxba qariyo runta ii sheeg waa kaamirada noo dubi gadaal taagan kaas ku wada kaamirada dubi gadaal taagan kaas ku wada maya Sheeko xiiso badan weeye. Ka badan horta marka hore. labada nin ee ag fadhida mid kamid a weeyaan arrintaa leexinin Cawkow haddii kale waa gacanta waan soo leexini Sax. waa ogolahay masaasaan ku wada misana waa Waa sheekada Gacan soo leexi. u gudagal. waa si fiican baa u shaacaya gacanta soo leexi okay waa taasi soo leexidaa far baa ku laaban xoogaa waa iga leexi oo laaban marka saaxiibaan yarka gabadhu shukaansanayay gabadha marka 2 cunug bay leedahay waa garoob si u shukaansanay gabadhu waxay usoo jeedisay arrin ah niyahow i guurso saaxiibka wuxuu ka shaqeeyay ma laha maalin buu soo labisani Sax. kolba shaati uusan lahayn buu soo xirani Sax. uu u imaanay gabadhu marka waxay iska dhaadhicisay ninkan xoogaa uu yara qoyan yahay Sax. ninka marka shaatigu maalintaa soo xiranayo habeenkii oo dhan buu baryotami ilaa intuu hal ka baryay oo isaga riim ku socdo riimka ku dhaqaaqaya haa bas marka gabadhii waxay tiri ninkan uu qoyan yahay xoogaa uu ku anfacayaa bal arrinta la wadaag Sax. isaguna gabadha iyadu way qoodisaa Sax. cuntada subaxii markuu imaado cunto kaale iska arag wax buu qoriyo iska dhig markaas dhima Qadada marka la gaaro. waa kaale iska arag cunto isbisha leh Sax. saaxiibka markaa yar ay saaxiibo yihiin oo shaati uu ka qaato shaqadii laga soo ceeriyey Sax. yaa kula jooga guri kula noolaa weeyaan Sax. shaqada laga soo ceeriyey Sax. marka wuxuu yiri niyo dee shaqada anna waan kasoo tegay Sax. adigana shaqa la-aan baa tahay dee maanta waxaan rabaa inaad nakaxaysaniyo nakici buu dhaha niyo gabadhii marka meesha u geeyey maqaaxidii cuntada laga wada cunay gabadh marka waxay leedahay nin kalaa la socda maanta ninkana lacagta bixinayo way ku xisaabtamaysaa isaguna wuu ku xisaabtamaya wuxuu leeyahay waa islaantaadii cunto kaaliskaa laga la cunay marka waxaa la cunay afso qaare adi cunto Sax. aan caadi ahayn Sax. ku dhawaad waxay gaartay 800 lacagta cuntada loo cunayay Sax. isaguna maalinta wuxuu cuni jiray 100 shilin maanta marka waxay leedahay lacagta adduunka la Sax. oo u yeertay waxay tiri dee awa lacagti Sax. kaasuu wuxuu yiri waan kuu soo noqonayso Sax. maya waxay tiri awa lacagti Sax. ilaa dee kuma soo noqonayside cuntadiina waad cunteene lacagtii baan rabaa Sax. wejigii bedelatay
saaxiibkan isku hadlaynaya wuxuu leeyahay islaantaadii waxba kama qasan arrintu waa si fiican bay ku dhammaan sax adoo lagu dhigay saaxiibkiisu la hadlay wuxuu wax lacag ma haysaa aday wadi budaniyo hadan lacag ka keen aday soo kaxay lacagta xakeen ka keen u dhacay sheekadii warba ku socotay in agteedii fadhiya ha dini wadi arrinta daawadayaashana daawanaya idinku iska dhageysta kulli wada aragtaa ninka waa iska aamusan yahay marka sheekadaasi anagala bakhaylina moogtahay anagala bakhaylina mar labaad ninkii sheekadii baa noo socotay sii saarad intaa sheekada haddii kale una aamusaynaa saaraysaan way saaraan marka gabadhii arrintu iska sii daysaaday waxay tiri bal hayo waa iisoo noqon wuu tegay saaxiibka uu soo soo laabtay gabadhi uu imaaday wuxuu dhahay maxaa kugu dhacay ninka saaxiibka nin laakiin aan ku weydiin aan kusoo laabtay taade sheeko waxaan hayaa anigu igu qosolka badnayd adiga aan maqlahaa sheeka keentay waxay ahayd maamo 9 jira maamo 95 sano jirtay museegeedana 98 sano jiray waa aragtaan alfanaan hanad gaashaan oo hees uga bartaan yaa awal sheekeynaba 95 waa wada jirtay museegeeda 98 buu jiray odageeda marka dee ma jirin awooda gacanta la saarin jiray habeenka marka la jiifanay sax habeenka dambu ilaahay xidad u dhiibade soo 8 saac soo kacay moogtahay soo jag soo seetay waryaara dadba ma ogeena waa maxay geedka caawa joogeenay tirood dadba ma ogeena maxay geedka joogeenay asxaabta waa guntii iyo gunaanadkii barnaamijka saaxiibkii hanad gaashaan sheeko qacagisi anna sheeko ka dana sheeko soo gabagabeynaya maama 9 jir asoo sheegay iyo nin 9 jir ayaa isqabay ninka Mareykanka ku maqnaa Mareykanka ka imaaday ninkii habeenkii la isgarab galay soo ninka habeenii hore de awoodda ka dhamaatay marka gacanta musaas ka dhigi jiray si gacanta u dhigi jiray habeenkii dambe intuu qabri aaday yusoo dalay madaxile madama iska soo kici waay marka habeenii uu gacanta xumarni waxa la siin jiray galaas yar oo ku jirto hilib yar oo lab ah ama soo taacanta odka iyo galaas caanan lido loo qostay oo firish ku jira habeenkii dambe iska saxay ninkii uu dhacay waa soo dhacay yuwaa bari waa soo dhacay naasho naxal waxa ku dhacay maxaa sidii aad ma soo gacanta labada bakhayl sheeko keentay tii ugu dambeysay aan ku soo gabagabeynayo sheekadani oo sheeko aad u qosol badan nin reebaadiye baa maalin maalmaha ka mid wuxuu soo aaday magaalada waxaan ka codsanaa inta sheeko soo gabagabay marka sheeko gabagabeynayso walaal qisada noo sheeg يعني قبل أسوي كوتش على تسلي ما خد اللغة عيدي وعز أنا صار أصحابته هذا تصوير فوقتي هذا تصوير والله بدو يوتيوب كان والله كعصا أوكي سبسكرايب هل كان أقول السعودة نين ربادية جري ما كملوا مجال السعودي سياش بدي وقارن لكن والدين شيء قصة قبل ما حكيت عن ما قلتن شعريت على شيء شيء كذا كهسة ولا شيء شير كرين ودواك بقى عكو داودياش هذا يسمى نجح يصدق شيء كذا ويسوقيان كقص المركز قدق شيء كذا مركز شيء كذا اللي يقول على نير بادية كلنا عاقص اليوم وحوي من مركز مجال magaalada markuu yimid dadka reebaadiye galjireyaasha waxa lagu garanay maawuusal kan ay geeyaan moogti aadiyad maawuusal kan ay geysanayaan saaxiibka marka maalin jimcay ahayd qodba jimcaha la tukanayay oo arkay dadkii dhan oo masaajidka gelayo dhac saaxiibka marka mid weysaysanay arkay uu la weysaystay qaab la weysaystana ma garanay masaajidkii iska soo galay marka salaadii baa la galay waa dalaqna salaadii markii la galo la tukaday waa la rukuucay moogtahay sax ركوع إلى ركوع أي ألعبتي سوى قال لك أركي ها يدو للماتو سيد صح كور جيل كلا مركاسة مت قال كنت كني يا وحود مع مركا ميا وحود مع إنه معوز توس وسو جيدو أربو إنتي قبتي سجل مقطع أربو قال وسو فيري مركاسو يري قال بيكي ماتي يقول إلا إيمان كنا نقارسي كي كلا كوي يقول جكسية مركو سو فيري أو فيري أنا سو فيري إن إلا هر قارسي إيمان كوي قال بيكي ماتي أصحاب ياشا شكلها سنسو جبيني بعدين كيجا وقنتي جنانتكي وقنتي جنانتكي برت يوتيوب كان كله هاي
hanad gaashaan subscribe-ka like-ta commentiga dambaleelka waxa dhan iskugu dara dee waad garanaysaan magacayga in badanoo maxaa la dhihi jiray taageerayaashayda asxaabtayda waxa dhan dee caawo like-ta waa inaad subscribe-ka waa inaad badisaan dambaleelka waa inaad badisaan like-ta waa inaad badisaan commentiga waa inaad badisaan muuqaale aad u xiiso inta badan muuqayga oo garanaysa xiiso muuqaala badan kuwan ka waad xiiso heli badanna doontaan mar dhow waan soo saarayna haddii aad laydmo hadduu muuqaalinku halkaan igala anfacayna socda insha hadduu allah muuqaalinku anfacayna dayma la'aanin saaxiibada ku sheegare asxaabta waa idinka codsan Si waa wanaagsan. codsi si wanaagsan